aanu isku afkaranay oo ka wada hadalay ma jirto marka waxaan leenahay war halkan anagu Soomaaliyeed ma rabno waxna nooma qaban wax Allah waxaan ku nacnay waxba weyna noo qaban Soomaaliland waxay wado iyo wax hogaaminayso iyo wax qabsiga ay dhulka doorayso iyo maanta ay baadhanayso iyo dadka ay muxuu ahaa xooga ku haysato adduunkuna waa og yahay annaguna waa ognahay marumaanu ka jawaabi doonaa Somaliland afka laga sheeganaya meeshan Somaliland ma runta waa kan wada hadlo Somaliland ma aha digii Somaliland kan anigu ahaa ee askarta halkaagii maantii aan askarta sameeyay sidahana loo gooyay farmaalinta ilaa maanta waxa la raaxdo qabtay male beesha afka Soomaaliya marka hada galo Faysal uu yahay beesha warisaaq dheh hawlan beesha dhexe olane meesha isaaq baa haysta isaaq baa wax ku gogol samay wax ku doonay meesha anagu Soomaaliland malnihin mala aqbalayno diiwaan gelina daaba diiwaan gelin ma yeelayno mana aqbalayno waxa weey waxna ka dhaxeeya ma jiraan qabyaaladana aabaheed baati Soomaaliyeed heerka ugu qabyaalad xun waa isaaq marka waxa weey iyadoo aan waxba loo qaban waa la dilay waa lagu soo duulay imisan baa ku maqamay kula tahay dadka Faysal xusbibaad sheeganaysaa imisan lagu dilay dagaal soo kay meel walba ciidan ma fadhiya meel walba ciidan waxa la wuxuu naga qaadayo male dhanka kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay injineer Faysal Ali Waraabe waxaanu yiri anoo hadda xusbi kama socono alxamdulillah waxaan ku soconaa ergaanahay waxaan yiri socdaalka nabadda iyo mideynta ummadeena ayaan u bixinay waxaan nahay dad ilaahay subxaanahu wa ta'aala meel ku wada abuuray baynu nahay halka taagtaagan waxa u baahan tahay mustaqbal u baahan tahay hooyadu waxa u baahan tahay caafimaad u baahan tahay idinku waxa u baahan tahay biyac min cambe u baahan tahay waxa dawlad baa sameyn karta qabiil waxa ma sameyn karo waxaan jecelnahay marka iskuulka inaan ku sheego kale wasaaradda tacliinta jirta wixii baahi jirta waan ka qaadi karnaa waan la tagi karnaa inay sameeyaan oo soo fuliyaan eedana waxa qaadanaysa oo ay saaran tahay beesha dhexe garta beesha dhexe oo tiri waan go'aanay waan la soo qaaday dawladnimadii haddana wixii bay isku fuuqsatay maraqii hilibka qaadatay suurtagal maaha kuraase waa laga kiciyaa waa la qaybsanayaa si cadaalad waa loo qaybsanayaa gabooyaha la siinaya xaqooda carabta sanaag baa la siinaya madigaanka la siinaya dad waxa jira aan codkooda aan la maqal oo laakiin waajibta in xuquuqdooda qaataan sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Suudaan Caawil Maxamed Fiiqle oo sheegay in dalka la wada leeyahay beelaha deegaanka xuduudna ugu baaqay in ay wada hadal iyo nabad xaqooda kaga raadsadaan xukuumadda Soomaaliland taaka bacdi aynu wada hadallo hadii la yiri aan wada hadallo waanu heshiina baa la yiri hadalku ninba waxa calooshiisa ku jiray wuxuu tabanaya haduu sheego ceeb ma baarlamaanka ama mid deegaan ha noqdo ama mid baarlamaan dhexe ha noqdo waxa wax lagu helaa doorasho ku yimaada doorasho cid buu ku yimaada kii beeleedka waa laga baxay hadaa codkii diidaan reer xuduurow sidee ku helaysaa wadankiina niyadu keena qalbiga dhulbahanta soo jeediya qulubtiina hagaajiya waa idugu bareeyna waa idu ducayna waagi bareey taasaanu idilo naga daacada annagu xukunka ma ii kaadina xukunka wali ma nan fuulin wali hadaanu reer ka nahay isaaq waxa taanday isaaq waa isku dhiidhiibaya wali noloma dhiibin war waxa yeeshaan madaxweynaha geeyda mid ku xigaa geeyda baarlamaan baa geeyda dad ilaahay minority iska dhiga ma tiidi inaad rooyikaad hadal baan ku dhigaynaa hadduduna waa dalkaaga waxaad xaq u leedahay ku xisaabta intaasi kadib waftiga ayaa u soo kixitay magaalada madaxda gobolka Sanaag